gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wuxuu Injineer Faysal Cali Waraabe oo saaka dalka ku soo laabtay waxa uu sheegay inuu maanta dalku marayo meel aanu weligii filaneyn inuu gaari doono isla markaana maalinta Sabtida ay labada xisbi mucaarid go'aamo iyo xogo wixii ay hayaan shacabka u soo bandhigi doonaan gudoomiyaha oo arimahani ka hadlaya waxa hadaladiisii kamid ahaa maanta war badan idin siin maayo dalka maanta hawlku marayo marxalad aan islahayn weligii yaalihiin dalku uu mari doonaa ayuu maanta dalku maraya gudiyo dibadba warwar weyn baa dadka umadeyna haysta shacbigeeni allah insha allahu tacaala sabtida in labada xusbi aanu wada fadhiisano xaalada dalku marayo inaanu go'aamo ka soo saarno xog taanu hayno aan la wadaagnan jecel insha allah shacbi weynaha reer Somaliland markaa maanta intaas baan isku dhamaysanayna sabtana insha allahu tacaala aanu qaraarada wada xusbi waxaan labada fulineed ay shiraan xusbigu arrimaha gudaha iyo dibadda dhaqaalaha nabadgelyada wadanku halku marayo maanta aanu insha allahu tacaala aanu ka soo saari doonaa go'aamo aan jecelahay inaan umadayda baraarujino aanu update gareyno halku dalku marayo ayaan sheegnay markaan saasaan ka dhigan doonaa insha allahu tacaala waa inoo sabtida insha allahu tacaala Cabdiraxiin Muuli Ismaaciil shabakada wararka News magaalada Hargeysa.